hagaag daawadayaal barnaamijka wardheere ayaa daawaneysaan qaybtiisa martida caawa waxaynu ku soo qaadaynaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa hambaliyay xildhibaanada cusub ee uu soo xulay guddiga doorashada ee uu magacaabay madaxweynaha wuxuu sheegay Axmed Maxamed Islaam in dadka la soo xulay ay u shaqeeyaan dadka Jubbaland haddaba soo xulista baarlamaanka ayaa ku soo aadeysay iyada oo dhinaca kale isbahaysi ay leeyihiin xisbiyada musharaxiinta mucaaradka ah ay sheegayaan in ay taasi tahay boob la boobayo geedi socodka doorashada Jubbaland waxa qaarkood ay sameeyeen iyaguna liisas ay sheegeen in ay xildhibaano yihiin oo dhankooda ama guddiga ay magacaabeen uu soo xulay haddaba xaaladda Jubbaland xagee bay u socotaa dhinaca kale hogaamiyaasha axsaabta mucaaradka ah ee heer federaal ayaa iyaguna soo dhaweeyay doorashada ka dhacday Jubbaland ee lagu soo xulay baarlamaanka haddaba qaybta martida caawa waxaa barnaamijka igu martiya maxamed cabdirasaaq faarax maxamed cirbad oo ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka quraana ah maxamed soo dhow marka ugu horeysa sidee baa u aragtaa horumarada ka soo cusboonaaday Jubbaland iyo geedi socodkii doorashada waa maasanta Axmed runtii Jubbaland waxa ka dhacay bilihii ugu dambeeyay waxa socday maaragtay doorasho iyo galaangal siyaasadeed iyo maxay ahayd inuu isbedel ka dhaca loogu jiray xurguf badan dad badan ay doonayeen inay hoggaanka ku hantaan runtiina de qolyaha maaragtay xukunka maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo tiimka ka soo horjeedaba waxa la joogaa xilligii uu dhici lahaa isbedelka oo xilligii doorashada ku aadan haddana waxaad moodaa in uu marayo meeshii gabagabada ahayd maanta oo kale sida aad sheegtayba waxa jiro inay xildhibaano ku dhawaaqday Jubbaland dhanka kalena mucaaradka ay ku dhawaaqeen laakiin waxaad moodaa intaas oo dhan inay go'aamin doonto waqtiga sida loo xalliyo hadda ama hay'adaha sharciga ku leh ay tahay inay arrimahan go'aanka ka gaaraan sidii u xalliyaan ama heer federaal ha noqoto ama Jubbaland laftirkeedu ha noqoto iyo beesha caalamku ayaduba sidoo kale ku lug leh ama saameyn badan ku leh doorashada Jubbaland doorashada Jubbaland waxay ahayd furun siyaasadda cakiran ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waayadan dambe u dhaxaysay laakiin shalay oo maalintii labaad oo ciida lagu jiray si lama filaan ah ayaa guddiga doorashada ay u soo saareen liiska xildhibaanada marka inay wax la ordayaan soo kama muuqan maalinta ay ku soo beegantay iyo sida wax u socdaan runtii maalinta marka laga soo tago waxaa jira culays kale oo ah in waxaan waqtigooda ay ku qabsoonto oo ay doonayaan mucaaradka iyo maaragtay oo Jubbaland iyo maaragtay dawladda dhexe iyo maamulka maaragtay laftirkiisa iyo beesha caalamkaba taasa horta keenaysa in wax badan la dedejiyo laakiin haddana sida ay u dhacday hadday noqon lahayd waxani maxalaalba ma loo siman yahay ma tahay wax xor ahayd oo dadku dhan u tartami kareen su'aalo badan ku hareeraysan sida maaragtay danjiraha qaramada midoobay uu weydiiyay maamulka Jubbaland kow inay cadeeyaan nidaamka lagu soo xulayay maxay odayaashu wax ku soo xulayeen oo la isku haysto ma saddex qof baa la soo hormariya ama hal qof baa la soo hormariya iyo sidoo kale in musharaxiintii laftirkooda la yiri qaarkood waqtiga idinka dhacay iyo in shuruudo badan oo laftirkooda aan dastuurka Jubbaland ku qorneen lagu soo daray sidoo kale marka la fiiriyo federaalku saameynta uu ku leeyahay ay leeyihiin doorashada annaga u madax bannaan sida dastuurku uu ogolaanayo wasaaradda arrimaha gudaha heer federaalna ay leedahay ma siin doono aqoonsi xalaaleyna marka waxaad moodaa si uun in iskugu cakaran tahay waqtiga marka la fiiriyo laakiin sidaan sheegay waxa go'aan ka gaari doono ama xaqiijin doono qaabka ugu dambeeyay ee maaragtay la iskula garto meelna waxa jirto aqoonsiga xalaaleynta oo looga baahnaa dowladnimada dhankii kalena isku hayntii dadka deegaanka wada degan iyo ilaalinta nabadeynta iyo wada noolaashiyaha iyo waliba wixii la soo dhisay 5 sano ugu dambeeyay in la wada ilaashado oo maaragtay meesha hadda ay joogto meel ka wanaagsan la wada geeyo waa mas'uuliyad wadareed ka baxsanaan u maleynaya xulafaysiga siyaasadeed ama shakhsiyadeed ee dadka ka dhaxeeya xurgufta shakhsiyada dadka ka dhaxeeya waa gartay maxamed laakiin dad badan waxay la tahay in xildhibaanada la soo xulay iyo sida boobsiiska ee xaaladda u socoto inay macnaheedu tahay inaanay waxba isbedelin oo Axmed Maxamed Islaam oo soo noqonayo ay xaaladda u eg tahay kula muuqataa sidaas adiga walwalkaas uu jiraa wayna muuqataa in awoodda maaragtay ay nimanka hadda Axmed Madoobe iyo maamulkiisu ay doonayaan inay
dib u qabsadaan oo halkaas uu maaragtay culays badan ka jiro laakiin dhanka kale haddana marka laga fiiriyo qaabka dadka faragelinta badan ee banaanka ka imaanayso iyo qaabkay nimankeeda isku difaacayaan iyo wixii waxaad moodaa xaaladdu inay si uun u cakiran tahay laakiin haddana dhanka kale marka la fiiriyo musharaxiinta meesha joogo iyo federaalka qaabka ay maaragtay walaaca uga muujinayaan oo maaragtay xurgufta guud ee maamul goboleedyada iyo federaalka ka dhaxayso laakiin sawirka iyo walwalka ah in ay Axmed Madoobe soo laaban doona haddii xildhibaanadan ay soo baxaan walwalkeeda leedahay wayna muuqataa waxa ugu weyn ee maaragtay dadku ay walwalka ka muujinayaan waxay tahay in waxa markii horeba nidaamka lagu dhisay haddaan loo sinayn hadhowna aqbalitaankii aan loo sinaan doonin oo xalaalaysiga nidaamka meesha ka jiri doono hadhow ay adag tahay in maaragtay awaamirtiisa iyo nidaamkiisa maaragtay la wada aqbalo waa gartay wasaaradda arrimaha gudaha dhawaan waxay sheegtay inaysan aqbali doonin sidaad adiguba sheegtay maxay taas ka dhigan tahay in kala guurkii siyaasadeed ee Jubbaland uu guul darro ku socdo saas ma la oran karaa runtii waa xaalad cakiran kaliya maahan dowladda federaalka laakiin sidoo kale beesha caalamka laftirkeeda su'aalo badan ku wajahan waxaa laga yaabaa kolley in hay'adaha maaragtay iyo dadka sida gaarka u daneynaya Jubbaland in maaragtay ay Kismaayo laftirkooda tagi doonaan sidaas maaragtay hadda la sheegaya laakiin xalaaleynta waxay ku xirnaan doontaa waxay u egtahay haddaan meeshaas ka dhax galo in qaab uun dib u heshiisiin siyaasiya laga fikri doono hadda oo aan lagu socon karin dhinac uun wuxuu wato sidaas waa macquul in rag badan oo hadda tartamaya laftirkooda hadhow dib u heshiisiinta ay xukuumadda ku galaan markii wax la dhiso wax kasta dhici karo scenarios badanaa dhici karo in dib u heshiisiin wax lagu xaliyo waxa kaloo dhici kara in dawlad maaragtay nidaam kale oo hadda xildhibaanada dhaariyeen inay foodadu dhanka kale ka socoto haddana oo foodo kale la bilaabaa dhici karto waxa dhici karta waxa hadda la dhisaya laftirkeeda in haddana dib loo dhigo oo haddana ay sii jiitanto waa gartay arrinta cakirnaanta keenaysa waxay tahay khilaafka inuusan laba geesood ahayn Jubbaland maamulkii madaxweyne Axmed Madoobe ee waqtigiisu dhamaaday iyo mucaaradka musharaxiinta ah iyo dhinaca kale dawladda federaalka ah oo aanay u arkayn maamulka Jubbaland inay dhaxdhaxaad tahay marka qaabkaas oo dhan la fiiriyo ma kula tahay in Jubbaland ay u socoto hab cusub oo fragmentation ah ama sida galmudug ka taagan oo kale warun walwalkaas wuu muuqdaa in wixii 5 sano la soo dhisay ay burburaan midda ay tahay in dad badan ay fiiriyaan waxa weeye inay ka fakaraan out of the box oo waxaan hadda taagan shakhsiyaadka ka dhaxayn karo wax ka weyn in laga fakaro nidaamka iyo meesha ahmiyadda ay leedahay iyo dhisitaankeeda iyo wada lahaanshiyaha in ahmiyad la saaro sidoo kale sida ay beesha caalamka iyo dadka daneynayo iyo Soomaalida laftirkeeda ama heer federaal oo maaragtay mucaaradku ha noqdaan oo haddaba maaragtay waraaqa soo saaray laftirkoodu iyo si guud Soomaalidu oo walwal gobolkan iyo arintiisa iyo mustaqbalkiisaba rajo badan ay dadku ka wada qabaan waxay ku tusi kartaa in haddii aan indhahaas lagu fiirinin oo xaaladda guud ee hadda shakhsiyaadka ka dhaxaysa ama maamulka ama nimanka mucaaradka ama federaalka in haddii aan indhahaas la fiirin ay cawaaqib xumo ka imaan karto oo loo laaban karo maaragtay meeshii hore ka timi waa tahay khilaafka hogaamiyaasha siyaasadda hadday mucaarad yihiin iyo hadday muxaafid yihiin dhawaanahan waa iska taagnaa sidaas aa sheegtay xisbiyada ugu caansan hadda mucaaradka ah sida xisbiga Hemilo xisbiga UPD iyo wadajir iyo dowlad goboleedka Puntland way soo dhaweeyeen wayna hambalyeeyeen xildhibaanada la doortay marka ma ku muuqataa in kala taagnaashihii caanka iska ahaa labadii sano ee ugu dambeysay dowladda iyo mucaaradka iyo dowlad goboleedyada u dhaxeeyay inuu reflectionkiisu ka dhex muuqdo processka ka socda Jubbaland waxaa hadda Jubbaland ka socdo ama mucaaradka ama maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo dowladaha dariska ama igaad ama si kale magaci doontaan ba qaataan waxa moodaa xoogaa xaaladdu inay markii kor laga fiiriyana si una cakiran tahay gudaha markii la sii fiiriyana ay cakiran tahay sheekadii ahayd cadawgeyga saaxiibkiisna cadawgeyga cadawgiisa waa saaxiibkay ama ciddii tusaale
aragti siyaasadeed aan isku diidanin ciddii ayaduna kasoo horjeedo anigu waan u hiilinaya waxaad moodaa inay mucaaradka iyo maamul goboleedyadu aad u isticmaalayaan laakiin haddana waxaa kasii maaragtay walwal badan oo haddana dadka deegaanka wada degan laftirkooda siday xaaladdu iskugu cagaran tahay iyo gobolka igaad dowladaha qaarkood ay involved ku yihiin ciidamada maaragtay hadhow la isticmaali karo ama nidaamka xasilooni darrada qaabka u dhici karo waxaasoo dhan marka la fiiriyo si uun waxaad moodaa inay xaaladdu iskugu cagaran waxaad ka dhawaajisay in laga yaabo awoodo ka baxsan Soomaaliya inay waxa ka socda Jubbaland ay si uun gadaal uga taagan yihiin dood waxaa jirta odhanaysa in Kenya iyo Soomaaliya isku dhacsan in Kenya ay aad u taageerayso maamulka ama nidaamka hadda waqtigu ka dhamaaday ma dhici kartaa inay taas jirto waxaan ogeyn in igad halkaas tagtay doorashada inay madax banaanaato lagu celceliyay dawladda lafteeda ay rabtay inay process dhaxdhaxaada ugu yaraan inuu halkaas ka yimaado marka ma u eg tahay in Soomaalida xataa wuxuuda ay ka baxsan tahay wax Jubbaland ka socda wixii conspiracy theory waa gooni oo ah la iska mala awaalayo ama tuhunka sidoo ku salaysan yahay laakiin inay wax cado hadda la arkayo oo Kenya si ay toos ugu lug leedahay ama ay maaragtay sameynaysa ma jirto laakiin wixii daha gadaashiisa ama wixii qarsooneen la ogeynay ama nidaam diblomaasi maraya ama dhan kala maraya waa gooni Kenya Soomaaliya hadda waxay ku leedahay saameyn maadaama AMISOM ay qayb ka tahay ilaa 3 gobolna ay wadanka hadda ka joogto oo ciidamadeedu waliba maaragtay nabad ilaalin u joogaan marka laakiin waa run Kenya aad bay gobolka u daneynaysaa Jubbaland marka loo fiiriyo xuduudda dheer ee la leedahay marka loo fiiriyo nidaamku in si uun loogu xagliyay inay iswaafaqsan yihiin ama dana uun maaragtay ay saaxiibo yihiin ama wax kale ka dhaxeeyaan laakiin hadda si toos ah anu ma dhihi karo waxa ka maaragtay Kenya maaragtay toos ugu lug leedahay laakiin arintan guud muuqato la isku haysto inay dan ka leedahay because Kenya qayb waxay ka tahay igaad waliba xubin xoog leh ka tahay marka in wixii ay rabto ay dhankaas marin karto waa macquul laakiin si waadaxa وهاجك مدة مركز خلاف كان جبلان يدولد الدحى وسود تاجنا إن أحمد مذوبة وجيد سعود كيسي سعوده ضد بدن الحوار كان اوتوماتيكالي إنه يقول درقته هاي دولد فدرال كحمر الدقن مركز مقولاتها هاي إن سكستو حتى لو وضع هذا البروسيس كان لو بدل أما لو قرقرحيه soo laabashada Axmed Madoobe waxay defeat u tahay guul darro u tahay dawladda dhexe marka la fiiriyo Axmed Madoobe inuu soo laabto maamulku madaxweyne ka yahay siyaasadda guudna waa la isku diidi karaa ama sida wax loo wado waxa isdiidan I think isaan u maleynayo maaha shakhsiyaadka laakiin waxa la isku diidan yahay nidaamka wax loo waday iyo wax priority la kala siinayo iyo sida maaragtay laakiin marka la fiiriyo hadii dawladda federaalka Axmed uu soo laabto oo uu soo noqdo markasta ama hadda uu soo noqdo ama uu meesha ka baxaba laakiin sida uu dhigtay haduu soo laabto waxa laga yaabaa inuu wixii la isku diidana haday meesha yaalaan uu khilaafkii xumaa uu meesha ka sii socdo ama wada shaqeyn la'aantii laakiin hadii waxyaalaha qaarkood laga heshiiyo inuu isbedeli karo oo waxaan maaragtay wax meel ku xiran maaha laakiin markasta waxay ku xiran tahay dano iyo wax la doonayo iyo wax la isku diidan yahay ama dastuurka ku saleysnaadaan ama wax kale oo siyaasadeed oo maaragtay maslaxada maaragtay dawladda dhexe dadka xukunkeeda hay iyo Jubbaland ka dhaxeeya noqdaan aad baa u mahadsan tahay Maxamed Cabdirasaaq Faarax ayuu daawadayaalkaasi ahaa barnaamijka Wardheere ayaa daawanaysan